salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu wacan daawadayaal kusoo dhowaada macluumaad kooban oo ku saabsan maandooriyaha taabuuga 4 ilaa 5 sano ka hor waxaa aada loo yaqaanay imtiqaadka sigaarka badeecada iyo shiishada tubaakada iyo calaqa balse waxaa ka dambeeyey oo dalka yimid maandooriye ka gadisan intaas oo dhan qaab isticmaalka kana fudud islamarkaana ay qabatimeen in badan oo ka mid ah jiilka aan looga baran maandooriyaasha kuma cusba maqalka dhagahaaga oo waxay ila tahay inaad maqashay maandooriyaha taabuuga waa tubaako farsamaysan oo casri ah waxaa la qiyaasaa inay soo baxday horaantii 1930kii iyada oo siyaabo kala duwan u gaartay wadamada adduunka waxa uu ka samaysan yahay daroogada sigaarka iyo shiishada oo laga isticmaalo badi wadamada soo koraya adeegsiga taabuuga wuxuu ku badan yahay dhalinta Soomaaliyeed iyagoo u isticmaala awoodsiinta jirka iyo inay firfircooni ka helaan qaarkood kama haystaan faham buuxa waxyaabaha uga imaan kara ma jirto qof ka mid ah dhalinta isticmaasho taabuuga oo wax kaaga sheegi kara waxa ay ka helaan oo waxa ka muuqanaya xishood kamana sheekayn karaan taas bedelkeeda waxa ay ka dharagsan yihiin inay tahay khalad isticmaalkiisa balse ay qabatimeen qaybihiisa soo gaaray dalka waxaa ka mid ah Hot and Galaxy waxa ay kula duwan yihiin qofba waa midka uu barto una qabatimo inta badan waxaa loogu isticmaal badan yahay nooca la yiraahdo Galaxy nooc asal ahaan waa mid qiimo sareeyay balse waxaa hadda yimid isaga oo la soo dhimay sida ay sheegeen ganacsatada iibisa taabuuga amaba tubaakada waa ka saameyn badan yahay inta aad filayso waa halkudhaga ku qoran nooc ka mid ah taabuuga khatarta caafimaad ee taabuuga kasakow doorsanaanta qofka inta uu u saaran yahay taabuuga waa maxay dhibaatada caafimaad ee uu leeyahay dhibaatada ugu weyn ee uu geysan karo waxay tahay bushimaha inuu ku yimaado dilaac taas oo sababi karta kansarka afka si la mid ah dheecaan ayaa ka baxa wuxuuna waxyeeleeyaa dhuunta sidoo kale waxaa xusid mudan in la qabsiga adaptationka taabuugu tahay khatar inteeda la-eg ragga iyo dumarka ayaa ku khatar badan isticmaalka taabuuga bulshada marka laga hadlayo dumarka ayaa ku halis badan waayo dhibaatada ugu badan waxa uu ku geysan karaa dhalmada dhiigbax mar walba oo hooyada uur qaado marka ay gabar tahayna waxa macquul ah inuu ku yimaado caado wareer sidee loo iibiyaa tubaakada qaab iibinta lagu garto ayaa ah mid iyana cajiib ah oo koox waliba waxa ay u taqaanaa magac gaar ah qaarna waxa ay u adeegsadaan astaamo aamusnaan ah oo indhaha uun layskagala hadlayo tusaale marka aad joogto goob aad og tahay in lagu iibiyo waxaa adag in aad ogaato qof iibsanaya sabab la xiriirta qofka oo aan hadlin ayaa dhiibaya lacagta isagoo la hadlin ayaana la siinayaa wax gacanta loogu daboolay oo aan bannaan la soo dhigin sida uu dalka ku soo galo lama oga khubarada qaar waxa ay qabaan in wadamada Aasiya ku yaala uu ka yimaado isaga oo soo mara ama la soo raacsiyo badeecadaha dekada ka soo dega qaar kale waxa ay ku sheegayaan inuu ka yimaado wadamada dariska ah oo garoonka ka soo dego ma lahan hubanti sax ah balse waxa hubaal ah in af Soomaali uu ku dul qoran yahay taabuuga oo waxa la fahmayaa in dad af Soomaali yaqaanaha ku lug leeyihiin naqshadeynta hagaajinta iyo suuqgeynta sidii caadada noo ahayd haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada ha ilaawin haddii aad nagu cusubtahay inaad subscribe dhahdid si aad u hesho muuqaalo kale oo ku xiiso geliya